الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha fulinta komishanka HIV/AIDSka Naasir Ejeex saaxiibkay aabihii macallinkii macallimiinta Axmed Nuur Guruuja aabihii saaxiibkay aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu xilka uu aniga ii wareejinayo anagoo inankiisa close friends dadkaan nahay uu ka mid yahay Sahra maama Sahra runtii aad iyo aad baan iyadana aan u sii sabootinaya waan ku faraxsanahay inay dadka sidaas ma aragtay sharafta u leh dadka sidaas aqoonta u leh inay macnaha anaga booska noo baneeyaan oo ay mas'uuliyadda nagu wareejiyaan waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale dhammaan ka soo qaybgalayaasha dhammaan uu ugu horeeyo dhakhtar Shabeel runtii doctore aad baan ugu faraxsanahay nagala soo qayb gasho dhakhtar Geel ka suuqada حمد أفقر شيء أقاسمها معمول كي العقد كوميشن كمنا كوميشنيرنا كمدا لما أنت هذه أدوات ما سنتي رنتي وحويا مدحوينها قرك جمهورية الصومالي الآن حل كان نوصو إجماعي وانو مهنقينا dad badan oo reer Soomaaliland oo markii xilka la magacaabay ila soo hadlayo igu lahaa Maxamed Abiib halka meel ka sarreeyay kula doonaynay aniguna wali halkan meel ka sarreeyay doonaya waanidii sheegaadi aad baad u maasantiin waxaan soo aqbalay inaan halkan qabto macallinkayga siyaasadda Ilaahay oo raxmado oo aan wax badan kaga daydo mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal marxuumkii Faataxada Umar ayaa isagoo ra'iisul wasaare noqday xamar anu wali waxaan noqon waa shaqadii ugu horeysay aan bilaabo isagoo ra'iisul wasaare noqday ay Maxamed Siyaad Barre wuxuu magacaabay rugta ganacsiga habeennimadii markii dad badan ila soo hadleen madax meermeeriye ay markii dambe ugu soo dhacdo Saanisiri oo hadii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal hor ka aqbalay ya maxaa yeela ma saluugeen position kan iyo dadka loo shaqeynayo laakiin macnaha dadku waxay la jeclaayeen ayaan eegay waana halkiina waan ku hanweynaa insha Allah taala inta markaan ka yimaado runtii madaxweynaha qaranku wuxuu noo diray meesiga halkii ugu jilicsanay dad loo diro dadka ugu jilicsanaa Soomaaliland dadka ugu jilicsanay waa dadka ay dadkoogu takooreen waa dadka shaqooyinkii laga eriyay waa dadka laga gooyay naxariis iyo raxmad oo dhan laga gooyay way wadadka aynu naqaano inay la iska ilaaliyo taabashadooda sida ayga waa kuwa la iska ilaaliyo inay sidii duri xun qabaan iyo kishi baraayna wax nala cunaan ay madaxweynaha noo tiray isma lahayn macnaha naxariista caynkaas laga filayaa in dadka lagu diro waxaan isla nin adag oo xira iyo eriye iyo fura yaad ahayd malaha war dadka caynkaasana loo direen noo soo duceeya waxaan dadka u sheegayaa idinka mudan naxariista mudantihiin baa halka ka helaysaan agteeda waxa xaq u leedahay baa ka helaysaan hadii maartay warnkii uu halkan laga jeediyay in hay'adihii waxaan wax ku bixinayay ay wixii yareeyeen noqotana Soomaaliland waa dad isku tashiga yaqaan dadkeedu waa dad isku tashiga yaqaan dawadiinu ku imayso ku gaatoon maysan dadkiina dhexdiisa wixii aad haysateena waa haysanaysaan wax cusubna in idin soo biiraan barajeynayna annagoo kaashanayna biidmillaahi kariim xooga cusub iyo maad aragtay dardarta cusub iyo waxana la soo filay madaxweynahan waxaanu ka codsan doonaa inuu nagu xooleeyo dadka ay lagu hagaajiyo wixii lagu hagaajinayo ka codsan doonaa maadaama ay wixii hoos u dhaceen oo halkaan keenay inta markaan ka yimaado waxa mas'uuliyad kala saaran tahay in la ilaaliyo dadka bad qaba kuwa badka qaba in ilmahaaga iyo inankaagu ilaashamaan oo la ilaaliyo lagu ilaalin kari maayo inaad guriga ku ilaaliso lagu ilaalin kari maayo inaad dhakhtar fiican aad geyso lagu ilaalin kari maayo inaad iskuul fiican geyso wuxuu ku ilaashamayaa inankaagu oo inantaadu ku ilaashamaysa inaad ugu horeyn naxariis u muujiso qofka xanuunka la nool oo aad mas'uuliyad ka saarto oo aanad takoorin buu ilmahaagu ku ilaashamaya waxa kale uu ku ilaashamaya qodobka labaad waa in guurka dadka loo fudaydiyo laga daayo culaysyada iyo mushkilada la saarayo xanuunka laga badbaadiyaa waayo inta dawada iyo maaragtay waxaynu ku wareerayno waxa ka muhiimsan aynu moos weyn iska dhigno labada moos ugu waaweyn waa labada because hadii aad qofkii takoorto cadaawad buu muujinaya isaga isku dayay inuu kugula dagaalamo because wuxuu haystaa madax nuclear buu haystaa oo ridi kara saacadu doono haystaa marka waa inaynu kaas uga badbaadino inta markaan ka yimaado laba arrimood waa muhiim waxa weeyaan wada shaqaynta halka commission qaran baa jooga commission kani marna uu wada guuleysanaya marna uu wada guul dareysanaya hadii uu ma jirto xil aan kala leenahay commissionka qaranka ee la dagaalanka HIV/AIDSka qarankana loo soo magacaabay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu Ilaahay naga dhigo kuwii guuleysay idinkana waxaad ka codsanaynaa
noo ducaysaan qodobka labaad ee aan kusoo gabagabeynayo dad wakti badan baad taagnaydeen wakti badan baad halkan aada joogteen dhammaantiin waan idiin mahadnaqaynaa war hal qodob waxa weeyaan wacyigelintu institution kooban iyo qof iyo koox iyo durbaano la abaabule ma samayn karaan haddii aynaan qof iyo aqal aynaan isku gaadhsiinin in bahalkaas sida looga hortegaya aynu isu sheegno oo kaloo aynu isu sheegno in aynu waxay tallaabooyinka aynu qaadayna yihiin qaar cad oo ay ugu horeyso taa sheegay in dadka naxariis loo muujiyo oo shaqooyinkooga aan kula dagaalano oo aan kula dagaalano maad aragtay waxa ay helayaan ee ay ama haydu ugu deeqdaan ama qaranku ugu deeqo wallahi waxaan idin ballan qaaday in kiish bariis oo qaranku idinku deeqay in xafiiskayga lagu cunay taas oo dadkaasi ay gaadhayso oo sidii nidii gaadhaysan idin sheegay maxamed ayb hadaan hawsleedii waa nin fresh cusub oo kuleelkii buu qabaa wixii inuu cunaya idinka cuni maayo waxa kaloo miim xeerkii ay sheegtay maama sahra xeerkaas inuu meel mar qaranka doon tahay waxa kaloo qaranka doon inuu meel maro dee qofka la qaban kari waayo isagoo loo naxariistay isagoo shaqadiisii lagu ilaaliyay isagoo daryeelkiisii la sameeyey ummadda la dhex tegaya maad aragtay mushkilad daaweyn la dhex tegaya xeer iyo xakamo lagu qabto u baahan yahay in xeerkaa la develop weeyaan waxa weeyaan anagoo kaashanayna commissionkii hore annagoo kaashanayna ragga muddada badan kasoo shaqeeya annagoo kaashanayna acyaanta aqoonta leh ee mudakarka ah ee maad aragtay arrintan hareeraha gooyaha ka jooga annagoo kaashanayna inuu meel maro oo baarlamaankuna halkiisii gaadhsiiyo insha allahu tacaala waanu rajeynaa anuguna ku dabageli doonaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dee waxa weya miisaankii baan fuulay maanta somaliland in badan baan anu dadku maalin raggaan iyo ninka muxuudiina chiefku labada dhinac reega xiga executive director kuna waa chief muxuudiina waa chief labadaba odayaal baa horta la socdaa markaan idinku khaldaman odayaal qabtaan meesha jooga wada ogaanaysaan waxaan somaliland u sheegayaa maanta miisaankii baan koray laba midun bay noqonaysaa inay igu qiimaysaan oo aan jaranjarada intaan soo fulay igu tiraadaan waad sii socon kartaa maxamed abi iyo inay igu tiraadaan gurigii hooyadaa ku noqo labadaa midun bay noqonaysaa iisoo duceeya insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu